Alfred Nobel waxaa lagu tiriyaa in uu ka mid ahaa hantiilayaashii ugu lacagta badnaa wakhtigiisa. Alfred wuxuu ahaa nin mukhtaric, yacni dunidu wax ku soo kordhiyey, balse waxyaabihii uu soo ikhtiraacay ayaa sumcaddiisa hoos u dhigtay. Wuxuu soo saaray noocyo badan oo ka mid ah hubka iyo waxyaabaha qarxa. Sidoo kale waxyaabihii uu soo ikhtiraacay waxay kaalin weyn ka ciyaareen kacdoonkii warshadaha. Waxyaabihii uu soo saarayna wuxuu ka helay milyaaraad aad u badan. Balse sida kale, haddii aan u dhigno lacagtan aadka u badan ka sokow, wuxuu helay sumcad xumo iyo in ay bulshada nacdo. Taasina waxay ku kaliftay ugu dambeyn in uu dareemo qoomamo iyo shalay aad u xun. Waxaana dhacday in ay xitaa diideen inta ugu badan haweenkii uu jeclaaday ee uu doonayay in uu nolosha la qaybsado. Maxaa yeelay ma aysan rabin in ay nolol la wadaagaan nin hanti badan ugu soo xarooto dilka dadka, xitaa haddii uu si toos ah kaga qayb qaadan dilkooda. In uu si dhab ah u shalayay wuxuu bilaabay markii uu geeriyooday walaalkiisa ka weyn 1888. Waxaa dhacday in mid ka mid ah wargeysyadii ka soo baxayay Faransiiska dhimashada walaalkiisa isaga ay ku qaldaan, waxayna u qaateen in Alfred qudhiisa geeriyooday. Beejadka ugu horeeyay wargeyskooda ku soo qoreen tacsi Alfred Nobel ay u dirayaan. Tacsidaasina waxay u dhaceysay sida tan: waxaa geeriyooday ninkii ka ganacsan jiray geerida, Dr. Alfred Nobel, kaasiyoo hanti aad u badan ka helay dilka bini'aadanka, welibana si dhaqsiha ku taajiray. Laakiin shalay ayuu geeriyooday. Run ahaantii, erayadan waxay beddeleen fikraddii uu Alfred nolosha ka aaminsanaa. Inkastoo aanu awood u lahayn in uu beddelo wixii uu aqligiisa ka soo ikhtiraacay, gacmihiisuna ay sameeyeen. 1895, sanad ka hor inta aanu dhiman, Alfred wuxuu saxaafadda horteeda ka xaqiijiyay dardaaran kama dambeys ah, sida nin ka warhayay in ay geeridiisa soo dhowdahay, isagoo hantidiisoo dhan ku wareejiyay urur ku howlgala magaciisa, howshiisuna ay tahay kormeeridda iyo kamari dhalinta hantidiisa. Iyadoo lagu dhaqmayo dardaarankiisa, sanad waliba ururku wuxuu lacag ugu deeqi jiray qof waliba ama caalin waliba ka qayb qaata u adeegidda bulshada qeybaheeda kala duwan, sida culummada kimistriga, caafimaadka, nabadgelyada iyo fanka. Sidaas daraaddeed, Nobel wuxuu isku dayay in uu iska yara khafiifiyo sumcad xumadii la diristay. Waxyaabihii uu soo ikhtiraacay darteed waxay gaartay heer ay bulshada ku tiriyaan in uu ka ganacsado geerida. Alfred Nobel wuxuu geeriyooday 10kii Diseembar 1896. Inkastoo Alfred uu gaaray sharaf iyo sumcad heer sare ah, cimrigiisa inta ugu badan wuxuu ku bixiyay sidii uu warshado u samaysan lahaa, waxyaaban u soo ikhtiraaci lahaa, hanti badanna uu u aruursan lahaa. Balse gabagabada noloshiisa wax walba wuxuu u khasaariyey si ay noloshiisa u xasisho. Alfred wuxuu ahaa mid ku hadlo luuqado badan sida Jarmalka, Sweden-ka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Marka fanka laga hadlana, wuxuu tiriyey gabayo badan, isagoo sameeyey riwaayado badan. Laakiin gabayadii iyo riwaayadihiisa ma noqon kuwa guuleysta sumcad xumadii haysatay awgeeda. Muuqaalkeen maanta halkan ayuu ku egyahay. Muuqaalka xiga inoo balan ah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.